nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino waryaalahan reer kalamaanow war maxaa meesha niga ku haystaan miyaa iska fadhi gorayaynaysaanuun timiraan abuurti tiifaa talihaa tujaarnimaan towtow oo hadda maxaad ka waddaa somalilan timira u baxda wartiin nin abuuray timir uma baxda nagala tag sheekanaas war adeero roob baa nugu malaadiiqayoo dooxyadii biyaha ayaadna qaadayba maadaa warbahaya cabbatul cumrigeyga ma arkin roob oo diiqnaqaay biilanku ogeeni war waxaa la yidhi waddada u dhaxaysa garowe iyo boosaaso ayay qayb ka mida biyo qariyeen baabuurtii iyo dadkiiba bannaanka ka istaagay madaxweyne ku-xigeenka puntland karaash baa isku biimeeyey markii uu ka gudba kadib bay dadkii kale ku dhiiradeen marka waxaa la yidhi madaxi waa midii dadkeeda dhibaatada uga hormarta oo waddo u furta ay maraan laakiin hadday dheefta u hormarayso dhibaatadana aysan bays arkayn shacabka mas-uulka ma aha warnimayahu muqdisho wadda madaxda sare ka xidhan weligay ma arkin warni anigu weligay ma maqlin mas-uul dawladda ka tirsan oo dhahaya waddada waa xihan tahay waryaa beenta iska daa sawkii goodax barre dhahaya kuwa furan ha naloo soo sheegaan xirne dadweynihii xilligii doorashada daydku celin waayey dabaaldegga iyo deedankana jeer isaga daahay iyo doraadda roontiiyo xulkii derajada u qaaday oo shalay damiinka u noqdaa dani dhex taalla warniyaw dogonta sidiyaa ballanka indoranga duub saari jirtay war adeero farmaajo ii geeya miyaad aadeen waxaan idhi tan sacaama kii daadiin kariyo kii daacadaa daaweyn karee ka weerar iyo dooxow ka jawac idinkuma dirsane war waxaa la yidhi ku xanaaqay maalmahan shaqada qaabka loo wade siyaasadi nin iyo naag miday tahay ha lay sheego haddii kala qabiil weeye baan toos u dhahayaaye intaasaan ku soo koobaya ayaana sii badin war allah u naxariista abgaangaariya wuxuu yidhi dal waxaan ku nool lahay saddexdii dalaaqood lagu furay dadnimadii warniyo dee rajactudhe haddii aad furtay aad siga noqotide warnimiyaw gobay da'le ee wasiinhaaya guudu faanhaaya laakiin lugugaan waaya leeri daldheefle hayna laakiin dad soomaaliyeedaan waysangna warmaday isaaqow warkaaga xabad kama fahmine maxaad ka waddaa waxaas kamana dhashii dhiigga caweesi dhulkuma ooga dhuumaheeno dhashii dhiigga caweesi dhulkuma ooga dhuumaheeno dhashii dhiigga caweesi dhulkuma ooga dhuumaheeno dhankada lagugu dhufay war ma dhal baa dhiig cabta warmaday isaaq warkiisa ma idnaan fahminana dhegaysta wuxuu idiin sheegay lafta gareen khudbadii u jeedshi lafta gareenna markuu soo amraysta wuxuu yidhi soomaali waa u soo duceey reer koonfur galbeedna waan u soo duceey wuxuu kaloo yidhi inta shaqaynaysa iyo inta loo shaqaynayaba waan u soo duceey waxaan kaloo u soo duceeyuu yidhi kuwa baraha bulshada 24 saac been ku soo qora kuwaasna iimaanka allaha gelshaan ugu soo duceeyuu yidhi aniguna waxaan ugu soo ducayn lahaa lafta gareen haddaan cimrada tegi lahaa xerta abu mansuur rabow iyo asaga allaha isfahansiiye war do'aadaadan ka dhimaatirtay muhuma faylata horta lafta gareen maadaama dal arbar usroogi mayligu fadaayay sharba iidan qeyr gabban inuu saka do'aaye war adeero lafta gareen ma u soo duceeyey somalilan inay ictiraafayso war naga tag ducada somalilan faysal cali waraabaan habeenna ka seexanin war waxba ma ogadineen dadka reer koonfur galbeed ee ku nool dhuusamareeb iyo gurceel waxay dhaheen deegaanada isaga baxaana la yidhi war deegaanadaas waa deegaano soomaaliyeede dadkaasma waxaa loo aaneeyey qosolkii maday isaaqa galmudug war aan hel walba mooshiidii kibirkii kashiitilanqaba kuuli alabanjaralongoorsidee walaari dadkii meelo asal deganaayeen koo faduul ee meeldhah galeelon dugudu haay reer dareen mayba ii jire udurkii buntland inoo intaa kafaniini sababtoo ee may bari jireen boowe waa in la baxshaa wallaahi joogi mahayo oo bilaahi joogi mahayo waa in nalaga baxshaa boowe warnimayahu maydan garane waa suntii federaalka oo faaftay war maamulka galmudug waxay yidhaahdeen dadka ka soo jeeda baaya bakool in laga barakaciyo dhulkan waa been mana ogolin annagu ma yeelayno hokufaniinti ma yeelayno hobad dheegda walwalba walka filada danu ku biday weeye leeyusata wareedhahay wasiirkii arrimaha dibadda norway maxay noo keentay war leerkii idinka dame ba idiin daaraysaa war wasiirka arrimaha dibadda norway waxay la kulantay madaxda ugu sarraysa dalka wararka hoosena waxay sheegayaan arrimihii shidaalka inay u timid marka ay baxdana kenyay sii martay markay noo imaanaysana kenyay soo martay war madaxdeenna muwaadiniin
norwejiyan aha ka mid ah ma kuwaasay u timid mise iyagoo dhan bay u timid warnimayow shidaala idinkaga dhegtay daday soo tarxiili rabtayba kala hadlaysaa lidhi madaxda warniyo tagxiil bay idinkaga dhegtay idinkiyo kenya ayay idin dhexdhexaadinaysay baa la yidhi war dhexdhexaadin bay kaaga dhegtay lacag bay sidaan la yidhi war laga kooga dhegday ha kooxda norwejiyaanka ee baasaboorka kontaroolasi haddii dhiiyo haddii ang nooliyo war baasaboorey kaaga dhigtay tubihii khayre oo loo qoray akhrinaysi war tubaha khayrey kaaga dhegtay gabadhaanu hadda ka hor bay tagtay qadar magaceedana waxaa la yidhahdaa ayna maariya wasiir ka tirsan qadar ayaa magaceeda loo sheego waxaa la yidhahday qoftaani waa ayna maariya markaasuu wuxuu ku jawaabay maariya filbeyt war islaantayda xaafaddii ii jirtaa ma u dhahay war maariyaj laguma dhihine ayna maariya lagu yidhi warnimayow andorontawisaatin maariyo siika 9-kii ayinka damboyti maarisha karboone waxay ahayd gabadh fanaanada oo riwaayadaha jisha war mareegaalka ayood bay ahayd war reer mudug riwaayad ma jiraane fartay ka dheelaaniyo war reer mudug ma goradaasana dadkii riwaayadda lileeyaha saari way hadduu jecelkuu qodox yahay anigaa kula rogsadhay kulala rogsanaye dulmigaas aad falkinaysid weeye mada isaaqo waxa dadka loo soo ceyrinaya haddeer waanu beeninay boowe been weeye leehatama lahayne warnimayow gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka cabdiweli muudey maanta soo dhoweyn siyaasadeed baa loo sameeyey maalmo dhoweydna waa tiimooshinaa laga keenayaa la dhahayey marka walaagii la sheega walleeka jeremiya war waxaasan la yaabin ninkii tegayaa la soo dhoweeyaa abwaanguuraha markii xilka laga qaada waa ti la soo dhoweeyey war waxaa la yidhi ciidankii booliiska hirshabeelle maanta waa bannaanbaxayaanoo mushaar la'aanay ka cabanayaan war weliba dhar looma toline macawiisaa lagu tababaraa xayta mushaarkay rabaan war yaa buluusiya shaalaley miyaadan maqli jirin maxaa mushaarkoodii u diiday tuutaha ka hor baa nambar la siiyey warnimaya walmooshiidina gobolka hiiraan qaswiinga ka teegan geegani sarkaalkii booliiskan kasarayaa laka dilyeelaleeye reed may su'aale oo yuusuf dabageed maalintiin inoo jiifado hamiinkiina hajeedo fadeey walnimayahow waa lawade ma lawada beledweyn allahayow ka dhig guri barwaaqaa beledweyn allahayow ka dhig beertii raaxada muqdishona allahayow waddooyinka u fur hargeysana allahayow ka dhig caasimaddii labaad ee soomaaliya allow rabbi ow baydhowna may kuwalasa caasimadda afaraad awgii la gub kismaayana allah ka dhiga caasimaddii saddexaad xamar waan la xumeeye yaa xaal mari haayo jeedkiin waan la xidhay miyaa tidhi war hamar muhuma dadku roogo huma ndo aynang nimanyaw adeer hargeysa way wanaagsan tahay allahayow hanaga xumayn war shirka nairobi ma ka hadashaan war yaa madaxda maamul goboleedyadu nairobi maxay ugu shiraan kenya inaan isku dhacsanaa miyaysan ogeyn war ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa